golaha deegaanka ee degmada Berbera ayaa saaka yeeshay kalfadhigoodii 12aad kalfadhigan oo shir gudoominayay duqa degmada Berbera kaasoo ka soo qayb galeen badiba xildhibaanada golaha deegaanka degmada Berbera kalfadhigan ayaa lagu ansixiyay miisaaniyadda dawladda hoose 2020 sidoo kale waxa dib u eegis ay ku sameeyeen mashaariicda sanadda sii dhamaanaysa ee 2019 mashaariicda laga fulin doono sanadda 2020 waxyaabaha ugu waaweyn ee lagu lafaguray waxa kamid ah horumarinta amniga caafimaadka waxbarashada wadooyinka gaadiid cusub ay soo iibsan doonto dawladda hoose degmada Berbera iyo dhiraynta iyo kuwa kale waxaana ugu horeen faahfaahin dheeraad ah ka bixiyay xogayaha fulinta dawladda hoose Cabdikariin Aadan Siciide iyo duqa degmada Berbera Cabdishakuur Maxamuud Xasan Cidin mudanayaal mashaariicdii 2019 waxay nagu qabsoomeen sidii loogu talagalay waana dhamaad laba saddex mashruuc ayaa harsan kuwaasina waxay ku dhamaanayaan saddex biloodka iminka aynu ku jirno haddii alla yiraahdo mashaariicda 2020 halkan maxay tahay aynu ku soo bandhigi doono idinkuna aad kaga doodi doontaan koob iyo soddon mashruuc weeye waana mashaariicdii horumarinta awal baynu ka shaqayn jirnay oo taaban doona dhinacyada badan ee waxbarashada caafimaadka nabadgelyada wadooyinka bilicda iyo kor u qaadista maxay tahay qashin ururinta iyo nidaaminta maamul wanaaga iyo qaybo badan oo kale oo kamid ah hawlaha awal baynu qaban jirnay horumarinta degmada soo jeedin ah 30% in loo kordhiyo mushaharka shaqaaleynaha dawladda hoose haddana isbarbar dhigo 2019 budgetkeenu waxa 70 bilyan 2020 waa 90 bilyan waxaana u dhaxeeya 20 bilyan oo korodhku uu noqonayo 22.4 ama 22.4 halkaan xaruntii gobolka weyn iskuulka Cabdisalaam dhinaciisa halka deerka laga sameeyay ayaa laga dhisi doonaa hadii Ilaahay ka dhigo waa taayna marka lacagta ku muujisan sanad walba waxaynu kordhinaa gaadiid baan soo kordhinaa gaadiidkaas 12 ah wuxuu isugu jiraa bulldozer maxaan oo saddex macdaad oo weyn oo ah bulldozer iyo grader iyo shovel kuwaas waa macdaadka waxa ku jira ambulansyo maadaamaynu caafimaadkii degmada ee hoose aynu la wareegnay oo aynu 12 xarumood oo saddex MCCyiin gacanta ku hayno oo shaqaalaha inta la ku walba waynanu miisaaniyadeena kordhinaa ay noqotaa malaayiin waxay dad badan ka qiimeeyay ka hinaasay 8 milyan 7 milyan oo bad leeyli midowga Yurub ay ku caawinaya anigu managa uga jeedin 8 milyan 7 milyan oo malaayiin dollar baan jeednaa aan degmadayda iyo dalkayga ku waramay marka 12 kaas ambalaasiya ku jira wadooyinka qaada ku jira waxa ku jira 5 nooxo oo lagu talagalay gudiyada xaafadaha saribada weyn oo inta habeen ku sameyn doona insha Allah aan aadamo weyna laakiin sanad walba inta ixtir lagu sameeyaa haddii aanu barbaarnay wadooyinka duuto sanad walba inta ixtir lagu sameeyaa kan aanu doonayno inaynu isnaayeen galno oo aynu wasaaradda boosaha iyo isgaarsiinta waxaan doonaynaa in wasaaradda baa leh inayda xarun gaara oo tan ka weyn iyada loo dhiso waxa ku jira macaamad quraan laga dhisi doono goobaha halka ku qoran ee halkan ugu qoran waa qabiile waxa habaalo tumaalood iyo mijacse qabiile waxaan ballan qaadnay masaajid iyo malcaamad qabiile waa meeshii intii garanay baa garay xilbaano wanaag isla raacnay qabiile waa xillada ku yaala tuuladaasi waa dar xoolaha laga cabo iyo balbalooyin المساجد laga dhiso macamad quraan laga dhiso waa 9 qol oo iyaguna lagu kordhin doono iskuulada hore u jira dugsiyada hoose dhexe maxaan ku dhahay waa Khadar Maxamuud Axmed Khadar Xeefo telefishanka caalamiga Kalson magaalo xeebeeda Berbera